waxaan halkan idiin akhrinayaa wartimurtiyeedkii ka soo baxay howlihii aynu bilownay min 16 Sebtembar ilaa iyo ka horba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiinta guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiinta galmudug iyo ergooyinka shirka ka soo qayb galay ee ay hogaaminayaan duubabka dhaqanka ee beelaha galmudug waxay si weyn ugu faraxsan yihiin sida habboon ugu qabsoomay kulamadii horudhac ahaa ee xalinta khilaafaadka ee dhacay 17 Agoosto ilaa 4 Sebtembar iyo qabanqaabada shirweynaha rasmiga ah ee dib u heshiinta galmudug intii u dhaxaysay 5 ilaa 16 Sebtembar. shirweynaha dib u heshiinta galmudug waxaa ka soo qayb galay ergo matalaysa dadka reer galmudug oo ka kala yimid dhammaan deegaanada galmudug ay ka kooban tahay iyo marti sharaf ee tiradoodu ka socotay ee bulshada qaybaheeda kala duwan tiradooduna ay gaaraysay ilaa 720. ugu horeyn shirku wuxuu si gaar ah uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowrka weyn uu ka qaatay guud ahaan geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dowrka gaarsiinta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool qaybaha kala duwan ee dalka taasoo uu horseeday wada hadallo bulsho oo miro dhal ah. waxaa sidoo kale shirweynuhu bogaadinaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha go'aanka masiiriga ah oo ay ku gaareen in la badbaadiyo dowlad goboleedka galmudug oo uu muddo dheer aafeeyay khilaafaad tiro badan. shirku wuxuu sidoo kale ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre safaradii uu ku soo maray deegaanada galmudug iyo dadaaladii dib u heshiisineed ee uu ku sameeyay deegaanada oo ku soo gabagabeeyay natiijooyin wax ku ool ah. shirku wuxuu si lamid ah bogaadinayaa dowlad federaaliga Soomaaliya iyo madaxda dowladda goboleedka galmudug heshiiskii siyaasadeed ee ay galeen oo saldhigga u ahaa qarameynta iyo isku dhafka ciidamada galmudug sugidda amniga caasimadda galmudug qabashada shirweynaha dib u heshiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug. shirku wuxuu sidoo kale bogaadinayaa hay-adaha dowladda federaaliga Soomaaliya iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiinta galmudug kaalinta mugale ay ka qaateen isu keenidda ergooyinka beelaha ku matalaya shirweynaha sugidda amniga daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira reer galmudug. ugu dambeyn shirku wuxuu ugu mahadcelinayaa bulshada deegaanada caasimadda Dhuusamareeb soo dhaweynta iyo martigelinta shirweynaha iyo sidii ay uga qayb qaateen qabanqaabada shirweynaha. ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirweynaha: 1. in la isu keeno dhammaan beelaha wada dega galmudug si loo sameeyo xog ururin iyo falanqeyn la xiriirta khilaafaadka ka jira dhexdooda. 2. in la isla fahmo lana xalliyo khilaafaadka bulsho iyo siyaasadeed ee galmudug aafeeyay. 3. in shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu dhisi karo galmudug cusub. si loo gaaro ujeedooyinka waxaa si habsami ah ka socday shirweynaha dib u heshiinta galmudug oo loo agaasimay 3 qaybood oo ku aastaysan yoolka shirweynaha iyo qaybo dhextaal ah oo isugu jira suugaan, muxaadaraad diini ah, doodo furan, falanqeyn, su'aalo iyo jawaabo iyo soo jeedino iyo muxaadaraad dhammaan kuwaasoo dhammaan kaabis u ahaa miro dhalka shirka. 3 qaybood waxay kala ahaayeen: waxaa shirweynaha laga soo jeediyey mowduuc asaasi ah oo ah gaarista dib u heshiisiin dhab ah iyo galmudug la wada leeyahay.
qaybtan waxaa la faguray mawduucyada hoos ku qoran, waxaana soo jeediyey khubaro ka socday wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga iyo xubno ka tirsan guddiga dib u heshiinta. mawaadiicdaas waxay kala ahaayeen sida soo socda: kow, xaaladda nabadeed iyo khilaafaadka ee galmudug maanta ku sugan tahay, ahamiyad dib u heshiisiinta bulshadeed u leedahay reer galmudug. saddex, dowrka hogaamiyeyaasha dhaqanka, culamaa udiinka, haweenka iyo dhalinyarada reer mudug ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta, xalinta khilaafaadka iyo maamul u dhisidda galmudug. weli waa socdaan mawaadiicdii. afar, soo bandhigista khayraadka iyo fursadaha horumareed ay galmudug leedahay. waxyaabihii laga bartay dib u heshiinadii lagu qabtay deegaanada kala duwan ee dalka, guulihii iyo caqabadihii lagala kulmay shirarkaas. miro dhalka dadaalada hadda socda ee lagu sugayo amniga deegaanada galmudug. casharadii laga bartay khilaafaadkii hareeriya maamulkii galmudug ee la dhisay 2015 la dhisay sida ugu habboon ee hadda galmudug cusub loo yegleeli lahaa si aysan mar kale u guul daraysan. qaybta waxay tahay labaad, waxay ahayd kulamo gaargaar ah oo lala yeeshay siduu guddoomiyuhu u sheegay dhammaan beelaha reer galmudug oo la dhegaystanayo waxyaalaha ay tabayaan iyo talooyinka ku aadan sidii looga heshiin lahaa khilaafaadka ka jira galmudug iyo dib u dhiska galmudug cusub. qaybta saddexaad waxay ahayd ku saabsanayd falanqayn ku aadan xal u helidda khilaafaadka iyo mashaakilka ugu waaweyn ee galmudug haysata iyo xog uruurin ay ergooyinka shirku ku lafagureen islamarkaana soo jeediyeen sidii ay xal waara looga gaari lahaa. go-aanada shirweynaha: kow, beelaha reer galmudug waxay isla garteen in si nabdoon oo shuruud la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhan yahay, kaasoo ku dhisan cadaalad iyo wada sinaan. labo, in dib u heshiinta galmudug la sii xoojiyo lana gaarsiiyo ilaa heerka ugu hooseeya ee deegaanada galmudug uuna dhaqanku door mug leh ka qaato. saddex, in dhisidda dowlad goboleedka galmudug noqoto mid talo badan la geliyey oo turxaan baxsan, kalsooni buuxda lagu wada qabo, la wada leeyahay, kuna dhisan shuruuc saldhig looga dhigayo shareecada islaamka iyo dastuurka dalka. afar, in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug. in khilaafaadka ka dhex jira bulshada galmudug wada degan ee la xiriira hanti iyo dhiig la ururiyo, talo laga bixiyo, xalintoodana lagu wareejiyo dowladda cusub ee galmudug loo dhisayo iyo dowladda federaalka. lix, in odayaasha dhaqanka beelaha galmudug laga saxo wixii khaladaad ah ee ka dhex jira. toddoba, in dowladda federaalka soomaaliya samayso habraacyo iyo shuruudo adag oo loo maro soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug. haddana waxaan idin akhrinayaa baaqa shirweynaha. shirweynuhu wuxuu bulshada reer mudug ugu baaqayaa inay colaada joojiyaan si loo helo bulsho wada jirta oo nabad ku wada nool. shirku wuxuu ku baaqay in degdeg looga saaro deegaanada galmudug argagixisada weli ku dhex
ku meegaadhsan. saddex, inay dowladdu hirgeliso waxyaabaha ka dhiman ballanqaadkii nabadeynta iyo dib u dhiska deegaanada galmudug. afar, in dib oogis lagu sameeyo hanaankii lagu soo dhisay dowlad goboleedkii galmudug ee 2015 in lana saxo wixii ka qaldamay. afar, in si degdega dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay ka qayb qaataan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada galmudug sida dekeda Hobyo, wadooyinka, garoomada diyaaradaha iyo goobaha adeegyada bulshada. 6, shirku wuxuu ku baaqayaa inay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa caalamka ay degdeg deegaanada galmudug u soo gaarsiiyaan kaalmo bani aadamo. 7, in degdeg ay dowladda federaalka u soo dhisto guddiga farsamada maamul u samaynta ee dhismaha dowladda galmudugta cusub. ugu dambeyn, shirku wuxuu hoosta ka xariiqayaa in natiijooyinka laga gaaray qabashada shirweynaha dib u heshiinta galmudug ay muhiim u yihiin soo afjaridda colaadihii iyo khilaafaadkii ka jiray reer galmudug dhexdooda iyo kalsooni ku abuurista bulshada ku wada nool deegaanada galmudug. intaas haddaad ii golaataan in yaroo ducaha ee aamiinta iigu dara. allow dadkayagu uu ahaado uliya diir. allow deegaankeenna allow aan dalkeenna lagu sheegin lama degaan. allow ciideennu dabeecadda ciideenna ay noqoto dahab. allow waxna deeqa naga sii degmiyo gobol. allow dowladeenna noodaa dowladeenna daacadda oo allow kuwa aan doonaynin nabadda dabar ku qabo. waa mahadsantihiin.